waa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee dhacay muddooyinkii dambe abaaro 8 subaxnimo ee Sabtidii maanta halkan oo ah isgoyska X Control Afgoye waxaa ka dhacay qarax midaamin ah goobta oo aad mashquul u ahayd ayaa mar qor isbedeshay lama watirada rasmiga ee dadka halka ku dhintay balse saraakiisha ayaa sheegay in khasaaruhu uu aad u badan yahay ciidamadii ku sugnaa xaruntan la weeraray canshuuraha lagu qaado dad shacab ah iyo laba qof oo u dhashay dalka Turkiga ayaa kamid ahaa dadkii lagu dilay weerarkii midaaminta ahaa ee halkan ka dhacay gaadiid badan ayaa sidoo kale halkan ku gubtay waxyeelo kala duwan ayana gaartay dadkii la socday gawaaridan oo ay ku jireen arday waxaana la aaminsan yahay in dhismooyin burburay wali dad ay ku hoos jiraan goob joogay ayaa la hadlay warbaahinta waxaana uu ka sheekeeyay waxa uu arkay markii qarxaasi uu dhacay waa cuqubadaas ayaa dhacday waxaas aad arkaysaan ummadana waxa weeye la isma yaqaan waxa waa meesha waa dad xitaa wax iska daay ciyaal baa ku dhamaaday nimanka ardada jaamiciintan oo ku jira halkaan ku dhamaan meeshaan way ku baaba'een indhaada maxay arqabteen markuu qarax dhacay waxaan arkay 12 qof oo bidaysa bal wax kale saas u bidaayay qaar waxay ku dhaceen meeshaas oo aan ka soo gurnay hilbahoodii halkaan waxa ku dhintay madaxdii meeshaan xukuntay alyoom iyo ninka la yiraahdo saylac iyo meeshaan ku jiraan hoos hadda ku jiraan waa rag baabacay oo booliska gaariga qarxay waan arkay wakaalka halka wata laga qaaday waxaan sheegay inay Turkiga wax ku noqdeen maxaa u taaday ya Turkiga wax ku noqdeen saraakiil Turkiga Turkiga halkaas u galay waa meeshuu galay Turkigu laba nin bay ahaayeen gaariga waxay noociisu ma sheegi karo waxaas ma yiri ma aan lahayn anoo dhan xitaa waa qarsoomay oo habaaskii iyo dhaska hadda isbiya ku soo mayrtay habaaskii iyo wixii oo dhan baa na qariyay markaan soo nimidna meeshaan ardadii markaan arkay madaxdii markaan arkay aniga waxaan sameeyay miyirkii oo dhan baa iga tagay iyo maskaxdii meeshaan cuquba ka dhacday waa kaab wax la yaab laha dhacay bulshada aragtay meeqa waxa weeye dadku 70 kama yara dhaawacan waa dadka dhintay dhaawac wuxuu ahaa 4 gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filisha oo goobtaasi gaaray kadib markii weerarkaasi uu dhacay ayaa la hadlay warbaahinta waxaana uu ka hadlay khasaarihii ka dhashay weerarkaasi ismidaaminta ahaa mashada tirar rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno dhaawacu waa sagaashameeyo sida hadda ay noo sheegeen goob joogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha number weyn ama tiro badan oo ardayda ahi waxay ahayn jaamacadda Banaadir inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan waxaa laayay dadkaas dhagari qabayaasha ku soo duulay dalkeena Soomaaliya ma aha markii ugu horeeyay oo ay qaraxa noocaas oo kale ah ay la beegsadeen mar kasta oo ay arkaan meel zaxmo ah ama bulshadu isugu badan tahay waxa ay ka caado dhigteen inay sidaas oo kale ay u laayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ka magan galnay shartooda bulshada Soomaaliyeedna waan hubaa inay kala garteen cadowgooda iyo saaxiibkooda halkan oo ah isgoyska X Control Afgoye waxaa ka dhacay qarax weyn isla markaana geystay saameyn aad weyn saraakiisha amnigu waxay sheegeen in khasaaraha halkan ka dhashay qaraxaasi ilaa imika aan lahayn tirokoob sax ah dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay maamulka gobolka Banaadir oo goobtan soo gaaran waxa uu sheegay in imika ay hayaan ururinta xogta rasmiga ah ee khasaaraha ka dhashay qaraxii halkan ka dhacay asaatee marka la eego khasaaraha qaraxan uu geystay waxa uu yahay mid baaxad weyn marka la eego tirada dhimashada tirada dhaawaca oo ilaa imika dadku ay sheegayaan in xaddigu ay dhaafto aan la tiri karin waxa sidoo kale dadka halkan ku dhinta ku jira dad u dhashay dalka Turkiga oo ka shaqeynayay wadada dhismaha ku socda ee Afgoye dadkaasi ayaa la sheegay gaariyaan 2 qof oo Turki ah sidoo kamid ah dadkii halkan ku geeriyooday goobtan la weeraray waxay ku taallaa isgoyskan X Control Afgoye waxaana lagu qaadaa canshuuraha isla markaana saaka waa berigii hore ayaa gaari waxa qarax laga soo buuxiyay halkan lagu dhuftay khasaarihii ugu badnaa ee halkan ka dhashay inta la og yahay Salaaman Xayti Xamdraagi Soomaali Cable Muqdisho waxaan runtii maantay halkan walaha shacabka dhexdiisa uga tacsiinaya dadkii Soomaaliyeed
ee aan waxba galabsan ee saakay ex control afgooye magaalada muqdisho duleedkeeda dhacda qaraxa weyn lagu geystay oo lagu xasuuqay dadkaasoo tiradoodii ilaa iyo hadda aan 100 inay kor u dhaafeen meelaha qaarna la leeyahay 150 ayay gaareen dhaawacuna dee intaasi in ka badan uu yahay taasoo noqonaysa musiibadii ka dhacday 14 Oktoobar isgoyska Soobe midii ku xigtay ama midii la midka ahayd inay noqonayso xagga khasaaraha iyo dhimashada dadkaas waxa ku jiray waan maqalnay arday jaamacada u socota waxa ku jiray qaar iskuulada u socda waxa ku jiray dad maaragtay khudaarta iyo ka yimid afgooye iyo meelahaas waxa ku jiray dad iska rakaab oo xamaalata oo shaqaysanaya waxa ku jiray dad horumarka dalka ka shaqaynayay marka dhammaan runtii waxaan eheladoodii iyo qaraabadoodii uga tacsiyeenaynaa dhacdadaas xanuunka badan xasuuqaas xanuunka badan ee bahalnimada ah ee kooxaha argagixisadu ay mar walbaba sabab la'aan dadkeena dhiiggiisa u daadinayaan taasoo runtii ah wax laga murgoodo la garan la'yahay waxay ka faa'iidayaan inay qof Soomaaliya oo gurigiisa ka soo toosay oo ardaya oo hooyo aabba inay ku xasuuqaan waxa noocaas oo kale waxayna muujinaysaa nimankaasi inaysan dhiig Soomaaliyeed lahayn inaysan islaamnimo lahayn inaysan yacni dhiig damqaba inuusan ku jirin nimankaas ummadda Soomaaliyeed ay tahay in meel looga soo wada jeesto waayo maalin kastaba dadka Soomaaliyeed bay la degayaan dhanka kale waxaan rabaa inaan u tacsiyadeeyo runtii hay'adaha amniga inaan u tacsiyadeeyo madaxweynaheena inaan u tacsiyadeeyo ra'iisul wasaaraheena inaan u tacsiyadeeno wasiirka amniga iyo taliyaasha ciidanka oo runtii waxaan tacsi ahayn ayagana aysan afkoodu karin dadkaas inay amnigooda dhowraan ay ahayd madaxweynihiina uu ku soo koomay inuu isagu amnigiisa kaligiis lafihiisa inuu amnigiisa u sugto xayndaabka madaxtooyada oo ku xirto dhagxaan iyo ciidan wasiirka amniga iyo taliyaashii ciidanka iyo dhammaan ra'iisul wasaarihiina inay isaga jiraan shaqo aan ahayn in dadka dalkan amnigiisa laga shaqeeyo oo kooxaha argagixisada dagaal rasmi ah lagu qaado waxaad moodaa dagaalkoodii inay u weeciyeen dawlad goboleedyada inay u weeciyeen maaragtay dadka siyaasiyiinta oo ka aragtida duwan inay danahooda kaliya ay ka shaqeynayaan ciidamadiina caqiidadoodii laga dhigay inay ilaaliyaan nidaamka meesha jire aan loo caqiidadii ciidanka laga dhigin inay ilaaliyaan nabadgelyada shacabka marka waxaan rabaa inaan madaxda Soomaaliya fariin halkaan uga diroon dhaho runtii ciidamadii waad marin habaabiseen waxaad ka duudeen meeshii la rabay ciidamadu inay ka shaqeeyaan shaqadii la rabay inay qabtaan taasaa waxay keentay in maalin kasta argagixisadu ay goosato qayb dhan oo dadkeena ka mid ah inay layso inay xasuuq geysato inay dadkii indhaha u ahaa ubaxii ummadeenna oo dhallinyaradii wax baranaysee in la xasuuqo marka waxaan leeyahay ciidamadu waa inay shaqadooda caadiga galaan arrimaha siyaasadana faraha kala baxaan taliyaasha ciidamaduna sidaas ay sameeyaan madaxweynuhuna inuusan ciidamada marin habaabin una adeegsan inay kursigiisa siday u ilaalin lahaayeen uu ku barbaariyo oo u diro shaqada dalkan inay qabtaan oo ah amniga dalka inay ilaaliyaan waxaan mar kale ka tacsiyadeynayaa dadkii ehelada ahaa halkaasi maaragtay eheladoodii ay ku dhinteen halkaas senator Macow senator la yiraahdo oo runtii wiilkiisa uu ku dhintay meesha oo nin kolleegeena oo saaxiibkeena guud ahaan maaragtay dadka Soomaaliyeed oo dhan askarta Soomaaliyeed oo runtii meeshaas iyaguna canshuurta iyo ilaalinaysay dhaqaalaha dalka inay kor u qaadaan oo meesha ku geeriyooday dhammaantood eheladoodii waa u tacsiyadeenayaa dadka dhaawacana waxaan leeyahay allaha u boogadhayo waxaana leeyahay waxay u baahan tahay maalin kasta tacsi looma fadhin karee tallaabo dhaba in laga qaado xagga amniga ciidankuna ay shaqadoodii amniga ay aadaan oo siyaasadda faraha kala baxaan waa mahadsantiin waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka inay hurdada ka toosto qaraxii Soobe waxaan xasuusanaa inay yiraahdeen 30 qof ku dhimatay haddana waxaa laga yaabaa in madaxda lagu sheekeynayo in khasaaruhu yar yahay khasaaruhu waa badan yahay qaraxii Soobana wax yar waxba kama yara hadduusan la ekayn dhaawacyada isbitaalada ay joogaan gurmad rasmiya ayaa dowladda looga baahan yahay dadka shacabka Soomaaliyeedna sidoo kale inay u gurmadaan dadkaas looga baahan yahay anagoo xildhibaanada ahna waa tagaynaa dhiigeena soo shubaynaa insha Allah gudoomiyaha gobolku waa mahsan inuu meesha tagay
laakiin waxaan rabnaa inuu ku daydo guddoomiyihii ka horreeyey oo maaragtay taabad shaqo fiican buu ka qabtay qaraxii halkaas ah guddoomiyaasha in lagu xasuusto ma rabna annaga qaraxyada si ay wax uga qabtaan guddoomiyaasha waxaan rabnaa horumarka dalka in lagu xasuusto laakiin maadaama qaraxyadii ay darisna leeyihiin guddoomiyaha gobolku inuu gurmadka ugu weyn uu fidiyo shacabka gobolka banaadir oo dhanna inay dadkaasi u gurmadaan waaye oo dhaawaca iyo dadka maaragtay runtii xubnahoodii qaybo ka mida laga yaaba inay waayeen wixii xamar iyo soomaaliya wax looga qaban waayeen in caafimaad degdeg ah oo dibadda ah loogu diro waa mahadsantiin